بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجyadii wacyigelinta ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ayaa waxaan maanta soo qaadan doonaa doorashadan ka dhacday shalayto waddankan United Kingdom. waxay doorashadaasi keentay waxyaabo fara badan oo isbedel weyn ah. waxay keentay aqlabiyad saaxiqa oo ay aad iyo aad ma garanaysaa 100 sannadood muddo ku dhow aan xisbiga Labour ku gaarin. 250 xildhibaan oo dowladdii hore ah ayaa xilkooda waayay oo 20 ka mid ah wasiir ku-xigeen ahaayeen ayaa waayay codbixintii dadweynaha. waxaan markaa 3 qodob baan ka hadli doonaa. mid waxa weeye doorashada noocana iyadoo 34% keliya ay codbixinta heleen xisbiga Labour ayay haddana waxay heleen aqlabiyad saaxiqa oo 60 iyo wax ka badan maxaan ku dhahaa tirada xildhibaanada codadka heleena waa 34%. maxaan ku idhaahdaa 66 ayay heleen xisbiyada kale iyo dadka iskooda u tartamaya independent-ka ahaa. xisbiyadu ka badan baan malaynaya 12 xisbi ka badan dadka tartamaya ilaa 20 gooni yani waxa weeye xisbiyada waxaynu labadan xisbi iyuun baa maaragtay iyo xisbiga liberalka iyo ka Scottska iyo ka Wales intaas waa ugu roon iyo Green oo imika soo baxay. laakiin xisbiga yaroo ciida ka badan baa jira waddankan. xisbigu waa si hawl yar baa loo sameeyaa 10 qof baa samaysan kara xisbi. wax laga doonayo oo lacagina ma jirto, wax buuqo laga raba ma jirto. kaliya haddaad tartamaysana 11 qof baad ka saxaysaa oo 11 adres baad keenaysaa. waa aad bay u sahlan tahay runtii. waxa dimuqraadiyad wax weyn alla ninkii ay hamka gashaabo waa soo dhex kara uu tartami karaa inta codka dadka u haya. marka horta nidaamka kaas waxa weeye dad badan baa isweydiinaya see ku dhacday inay codka ay heleen noqdo 4% haddana xildhibaanada inta laga helaa. dadku sharciga dhigtaan bay ku socdaan. shuruucduna marba kii la dhigsun baa shaqeeya. waxay dhigteen in maxaan ku idhaahdaa xildhibaan walba codbixintiisa gaar loo tiriyo oo cidda meesha uu matalayo lagu tiriyo. qofkii ugu cod bata hal nah dheeraada xabadna ka ugu horeeyo ee ugu cod bata ilaahay idinkii ha helo 10%. ya codbixiyaasha ma oo hadday badan yihiin codbixiyaasha kale ka ugu dhow 9 helo waxa weeye wuxuu kaasaa noqonaya xildhibaan. oo nidaamka ay ku heleen. marka meesha tartanku markuu bataba tira yar waa ku heliyaa xildhibaanku. taas waa taa oo waxay tahay dad badan la yaabaya oo odhanaya waa sidee xisbiyada cankana. waddanka Faransiiska haddaynu eegno wuxuu sameeyey marka saa loo tartamo kursi walba xildhibaan walba booskiisa la tiriyo. xildhibaanku hadduu xildhibaan gaaro 51 automatically wuxuu helay kursigii. haddii taa la gaari waayo dib baa la isugu celinayaa labada ugu codka badan. marka Faransiisku wuxuu isagu goostay in ay tahay dimuqraadiyadda ugu wanaagsani ninka xildhibaanka inuu wato aqlabiyadda cidda dooranaysa constituency-ga ama meesha laga dooranayo inuu aqlabiyaddeeda haysto 51% ayay ka dhigteen. laakiin ingiriiska waxa weeye ilaahay idinkii hel 10%. waa kii ugu cod batun baa qaadanaya wax la isku celinayaa ma jirto. taasi waa taa. qodobka labaadan jecel waxa weeye inaynu eegno sideeba xilka markiiba loola wareegay. waxaad arkaysaa xalay 10 sannadood la xidhay foodka markiiba tirintii baa la bilaabay. waxaa lagu tirinayaa xildhibaan kasta meesha uu tartanku ka socdo. waxaa loo yeedhayaa oo jooga dad
matalaya dadkaa tirtamaya. marka tirada dadka tirinaya waa dad shaqaale oo volunteer ah oo had iyo jeer commissionku marka ay dowladda soo dhawaataba shaqaalahaas way apply gareeyeen oo dad badan oo ritaar garoobay bay u badan yihiin. kulka waxa weeye waa la is aaminsan yahay tirada halkaa lagu tiriyo markaas lagu dhawaaqo markiiba waxaa la isu geynayaa ma haysanaa aqlabiyadii kuraasta baarlamanka xisbiga haysta ninkii waa ninka u boqoran markaa ra'iisul wasaaraha ninka u guddoomiyaha ahaa xisbiga liidarka u ahaa boqorku u tegayaa boqorku markuu tago boqorku waa sharaf yani boqorku waxa weeye ikhtiyaar ma leh waa inuu ninka aqlabiyada haysuun ahdaa ra'iisul wasaare noqo. intii markay dhacdo ra'iisul wasaarihii hore saacadda uu ogaado inay taasi dhacday gurigiisii kan daaministeri waa guriga iyo xafiisku waa isla meel alaabtiisu waa xidhan tahay gaari baa xagga dambe la geynaya xagga dambe ayaa alaabtii laga saarayaa isna xagga dambe ayuu ka baxayaa wuxuu ku sugootayayaa shir jaraa'id oo uu ku macasalaamaynayo statementkii ugu dambeysay inta badan isagiiyo xaaskiisa ay soo taagaa halkaasi uu statement ka bixiyaa uu ka baxay. markuu ka baxo ra'iisul wasaarihii kale xagga albaabka frontkee hore wajahadda ayaa shacbigiisii iyo taageerayaashiisii qaar ka mid ay taagan yihiin halkaasuu isagiiyo xaaskiisu imanayaan uu salaamayaa halkiibuu ka galay waa loo wareegay xilka iska canqaad xataa ma jiro waa iska canqaadaya xaflad xil wareejini ma jirto oo lacag lagu bixiyaa. waxaad qiyaastaa innaga sanadkii inta xaflad xil wareejinaynu samayno agaasime waaxid iyo section manager ayaa xil wareejin aynu u qabanaa sanadka oo dhan xil wareejintaynu way socotaa ilaa ta madaxweynahana iskaba dhaaftay sida loo buunbuuniyo. waxa weeye waxaas waa maxay way samayn karaan laakiin wadamadani waa waxyaabaha shacbigu uu ka koray in lacag lagu kharash gareeyo waxaan macno lahayn. waxay ilaashadaan dadkani lacagta ay bixiyeen ee cashuurta ah inay gasho meel ayaga anfacaysa. waxaan jeclaan lahaa haddii la helo dhalinyarada isxil qaanto oo accounting economics iyo journalistayaala bal inay research ku sameeyaan sanadkii inta xafladahaas inagaga baxda xil wareejinta iyo damaashaadka iyo dabaaldega xisbiyada iyo wareerkan ya inagoo dad baahan oo dhalinyaro aynu ognahay dhaqaalihiina intuu leegyahay. qodob waa kaa qodobka kale aan jecelahay waxa weeye siday dimuqraadiyaddu u tahay qof iyo sinaan. markaa waxaa la sheegaya waa maxay tirakoob baa 10 sanaba la sameeyaa tirakoobkaa la sameeyaa kuraasta lagu qaybsadaa isagoo dadku isleegyihiin baa lagu qaybsadaa si ay isu leekaan meeshii badanta waa loo badiyaa meeshii yaraato waa laga raraa. wadankan mantaqadan ku leenahay Wales ikaadh madaxda u tahay waxaanu lahaan jirnay 40 xildhibaan doorashooyinkii hore. doorashadan maanta waxaanu nalaga jiray 32 xildhibaan baanu leenahay. hal qof oo diiday ma jiro hal qof oo ka qayliyay ma jirto cid tilo waa layna dhacay ma jirto sababtoo ah waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclo halka kan ugu dhaqmaa waa dimuqraadiyad war dadkeena hadday yaraadeen meeshaasay dadkii ku bateen ayaa xildhibaanka loo raraya. inaguna 63 sannadood ingiriisku wixii uu inoo qoray baynu sixi kari la'aanay oo halkii taagannahay oo dastuurkeena iyo sharcigeennaba uu sheegayo in dib loogu noqdo qayminta kuraasta baynu dhaqaajin kari la'aanay. sababtu waa maxay dadkii lama bislayn dadka in la bisleeyo oo qabyaaladda laga saaro oo la tuso caasimadda in la wada leeyahay oo cid walba iska sharaxi karto meeshay badanba oo dadka dee la hawlgeliyo la wacyigeliyo oo aqoontooda kor loo qaado dowladnimada la baro ayaa
ay dadku si hawyar ku aqbali karaan laakiin dadkii marka hadday reerayo lasu eriyanayo meel yaroo soka la eegayo sidaynu cadaalad ku gaarna waa adagta qodobka saddexaad waa qodobka dhismaha dowladda maanta xisbigaa guulaystay labor xisbigaa guulaystay waa xisbi qaran aad iyo aad magaranaysaa taariikh u leh isaga iyo conservative-ku labadaa xisbuun baa dowladnimada runtii ingiriiska marba liberalku wuxuu ahaan jiray baa la yidhi laakiin somaliland gaadhin labadaa xisbuun baa ku tartama dadweynuhu way ka guuraan xisbigii ay arkaan in aanu hawshii ama qabanaynin ama khilaaf ku dhex jiro adu ay dad xor bay marka isbeddelka waxa keenaya dadkii oo majuur ah oo caqligoodu soo jeedo barnaamijyadii lagu ay ka filiyeen dowlad ka waayaan way ka guurayaan oo meesha kale tegayaan mar walba waa dad fakiraayo oo la xisaabtamaya dowladda markaa ma jirto meel uu taagan yahay xisbigii meel uu taagan yahay xisbigii uu kalsooni ku qabo oo ah dadkii ku codeeyay inay ku maxaabiis ku yihiin ay ku xidhan yihiin ma taalo electionka dee waxa loo galaa in dadkii hore ay isbedelaan oo kii xisbigaa la socday halkan kala tago kan kalena kaa kala tago markaa meeshii loo bataa ay soo baxdo haddaanay dadku isbedelaynin oo meel uun haysanayaan waxbadee doorashadu faa'iido ma yeelateen oo kaa horunbaa joogi lahaa meesha teeda kale waxa weeye guusha xisbi ma yeeshay dowladda la magacaabayaa oo uu magacaabaya ra-iisul wasaaraha cusubi waa dadkii la shaqeeyey guusha xisbi baa keenay guusha xisbigu keenay dadka la magacaabayaa uu magacaabayaa waa dad xisbigoo dhan ku qanacsan yahay dhammaan dadkii la shaqeeyey xil uma magacaabi karo laakiin waxay ku qanacsan yihiin mar haddaan cid dibadda laga keenaynin oo dadkii wada shaqeeyey qaar ka miduuna geliyaan dowladda xisbinimadii saasay gacanta laysu qabsanayaa xisbiga xisbi jiruu noqonayaa waan baabi'in oo mabda'ii lagu shaqeeyey abaalkii la wada leeyahay oo guushii la wada leeyahay guusha inuu qof sheegtaa isagoo la doortay oo dimuqraadi ah waxa weeye ayandarada ugu weyn ee ku dhacda xisbiyada waana nidaamka abuura kelitaliska waxaa abuura inuu qofku isagu keligii isa siiyo guusha oo uu eegi waayo xisbigii iyo hawsha ciddii qabatay marka waxa weeye inaga doorashada inagu soo socotaa saddex xisbi qaran ayaa tartami doona insha allahu tacaala saddexdaas waxaynu ka doonaynaa barnaamijyo ay noo soo dhigaan barnaamijyadaa lasoo dhigo ayaynu markaa ka howlgeli doonaa laakiin tacasub iyo qabyaalad ku doorasho dalka ma anfacdo dadweynahan ma anfacdo wax alla wax idin taraysaa ma jiro iyagana waxaanu ka codsanaynaa inay barnaamijyada lasoo dejiyo oo barnaamijya la keeno barnaamijyadaasina dadweynaha kala doortaan nabadgelyada aynu haysanaa la ilaashado qaranimada la ilaashado tacasubka iyo tallaayada laga daayo ilaahay idinkii bidmillaahi alkariim somaliland doorasho nabadgelyo oo fiican baa inoo dhici doonta dadkuna waxay weeyaan leenahay hala baraarujiyo oo dadka waxa la baro oo aqoontooda kor ha loo qaado oo xaqa bini aadanka ah ee walaalkaa marka aad la jeclaato wanaag sida diinteenu ina fartay ayay dimuqraadiyadda aad maqashaa waxay ku dhisan tahay in dadka muwaadiniinta xuquuqdooda sinaato waxaasoo dhanna waxaa keenaya is-aamin kana iyadaa dhalisa wuxuu dadku is-aaminaan markaan ogahay sharcigaa ii yaalla in lagu soconaayo aanu qofna weexanaynin ayaan dhammaantood noqonnaa walaalo ilaahay ninkii bismillaahi alkariim si wanaagsan ayay doorashadaasi inoogu dhici bismillaahi alkariim waxaan jecelahay anigu xaggan waanada marka u dambaysun baynu xaggan ku biyashubanayso aynu isla garan doonaa insha allahu tacaala anigu laakiin waxaa aan qiimeynaya waxa weeye dadka in garaaskooda kor loo qaado oo barnaamijyadana aynu xabad u darisno oo wanaagga ummadda laga shaqeeyo oo dadka aan jaahilnimada lagu haynin
dowlad xumada waxa keentay marka dadka waxay halkii laga ilbixin lahaa dowladnimada la bari lahaa civics-ka loo dhigi lahaa sidii beryo hore aanu nagu dhigan jiray malayn maayo iminka iskuullada in lagu dhigto dowlad wanaaga laakiin insha allahu tacaala waynu gaari doonaa waxaynaga dhiman nabadna hala ilaaliyo. السلام عليكم.